afarta shay amba afarta shaqo ee ugu muhiimsan ee warehouse-ka uu qabanaya waxay tahay kow in wax lagu keediyo alaaba la keenaa warehouse-ka ayaa la dhigayaa marka wuxuu noqonayaa storage alaabta ayaa lagu keedinayaa waana lagu ilaalinayaa lagu xifdinayaa arinta labaad oo warehouse-ka lagu sameeyaa waxay noqonaysaa in material handling lagu sameeyo oo alaabtii meeshii lagu dhaxabeeyo lagu qabto alaabta markii la keeno qabashada waxay noqonaysaa warehouse-ka gudihiisa in lagu sameeyo arinta saddexaad ayaa waxay tahay markii dalab oo imaado warehouse-ka gudihiisa lagu diyaariyaa lagu xirxiraa isla markaasna markabka loo diyaariyaa si loo geelahay marka packing and shipping ayaa lagu dhex sameeyaa warehouse-ka gudihiisa oo shirkadda laamiyada ma istaagayso baqaarka waa inay ku diyaarisaa alaabihii lasoo dalbaday si meeshii la saari lahaa gaari markab loo geeyo arinta afaraad waxay noqonaysaa qalabka loo isticmaalayo marka qaarkood warehouse-yada waxay isticmaalaan qalab loogu talagalay alaabta taalo in lagu mariyo oo barcode ayaa loo yaqaana equipment marka qalabkaasna meesha ayaa la dhigaa oo alaabta la marsiinayo marka qaarkood quality-gooda lagu ogaa karaa marka qaarkoodna alaabta tiradii waxaas ayaa lagula soconaya iyo meesha la geeyay marka qalabkaasna warehouse-ka ayaa la dhigaa